Isel waa mar kale iyo Warsaaf Media wararka maanta aanu idiin hayno waa warar aad u xiiso badan waxaana kamid ah niman tuugaha isu soo ekeysiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska dabadeedna dhistay xafiis koobi ah oo laga aqoonin kii uu ku lahaa magaalada Paris oo ay ka dhisteen wadanka Israa'iil deedna dad maalqabeen ah iyo shirkado ballanqaad been ay u sameeyeen ay kaga furteen malaayiin dollar lacag gaaraysa wararka kale aanu idiin hayno maanta waxa iyagana kamid ah aad u xiiso badan in sirdoonka Faransiiska ka tirsanaan jiray hore isugu dayay inuu dilo madaxweynaha dalkaasi Congo Brazzaville oo isagii meedkiisii laga helay buurleyda dalka Faransiiska loona maleynayo in argoosi loo dilay waxaanu kaloo idiin haynaa maamulka madaxweyne Trump oo lagu soo yeediyay inuu tiknoolajiyada nuclear-ka ka iibinayo Saudi Arabia taas oo dana shakhsiyadeed ay ka leeyihiin isaga iyo gacan yarayaashiisu wararka kale ee maanta waxaa kamid ah safiirka wadanka Suuriya u fadhiya qaramada midoobay oo ugu baaqay Donald Trump haddii uu dhul siinayo wadanka Israa'iil inuu siiyo gobolka North Carolina ee uu ka soo jeedo ninkii ka dambeeyay arrimahan ee Lindsey Graham laga soo doorto balse aanu siin karin buurleyda Golan Heights ee dalka Suuriya wararka iyo kuwa kale ayaad kaga bogan doontaan maanta Warsaaf Media dawladda ku bilowna ee maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa lagu soo eedeeyay in uu bixiyay 7 ogolaansho oo qarsoodi ah ilaa November sanadkii 2017 kuwaas oo u ogolaanaya kambaniyada ka shaqeeya tamarta in ay la qaybsadaan ama ay la wadaagaan ama ay siiyaan dalka Saudi Arabia farsamada tiknoolajiyada ee aad xasaasiga u ah ee hubka nuclear-ka ah Kongareeska dalka Mareykanka oo si aad ah u daba dhigtay warshadahaasi laga dhisayo dalka Saudi Arabia ee nuclear-ka maadaama ay ku doodayaan in badan oo Kongareeska kamid ah in dalka Sacuudiga aanu u baahnayn tamar nuclear ah waxa uu raadinayaan ay tahay in aakhirka ay sameystaan hubka nuclear-ka ah iyagoo la tartamaya wadanka Iran ayaa waxay cadaadis xoog leh ku saarayaan maamulka madaxweyne Trump in isaga iyo gacan yarayaashiisu ay soo bandhigaan cid ogolaatay in waxyaabahaas xasaasiga ama farsamooyinka tiknoolajiga ee xasaasiga ee salka oo ay asaaska u ah dhismaha warshadaha nuclear-ka laga iibiyo ama la wadaago wadanka Saudi Arabia amiirka wadanka Saudi Arabia ayaa sanadkii hore mar uu wareysi siinayay barnaamijka loo yaqaano 60 minutes ama 60 daqiiqo ee ka baxa TV-ga loo yaqaano CBS waxa uu sheegay in Sacuudigu ay doonayaan habka nuclear-ka ee laga dhaliyo tabarta si nabadgelyo ah balse aanay doonayn in ay ka sameeyaan hub nuclear balse waxa uu intaa ku daray in dabcan haddii Iran ay sameysato hub nuclear aanu Sacuudigu fadhi doono isaguna uu sameysan doono sababaha loo maleynayo in madaxweyne Trump iyo maamulkiisa ay ugu ogolaadeen wadanka Saudi Arabia inuu helo farsamooyinkaas oo aanay ku jirin liiska wadamada hore loo qoondeeyay in Mareykanku uu ka iibiyo ama uu la wadaago farsamada tiknoolajiyada nuclear-ka ayaa waxa loo maleynayaa in ay tahay tartanka ka dhaxeeya sharikadaha Shiinaha, Faransiiska, Koonfur Kuuriya iyo Ruushka oo doonaya qandaraaskaasi inuu Sacuudigu siiyo iyo kuwa Mareykanka oo doonaya iyaguna in ay la tartamaan kuwaasi oo qandaraaska iyagu ay helaan sida darteedna ay ku cadaadiyeen maamulka madaxweyne Trump in uu ogolaado in farsamooyinkaasi ama macluumaadkaasi tiknoolajiga ee lagu dhisay warshadahaasi la ogolaado haddii kalena aanay Sacuudigu ogolaan doonin qandaraaska ay siiyaan sharikadaha Mareykanka balse in fara badan oo kamid ah dad siyaasiyiin ah iyo qolyaha ka tirsan Kongareeska ee xildhibaanada ah ayaa waxay aaminsan yihiin in dana khaas ah oo madaxweyne Trump iyo wiilka uu sodogga u yahay Jared Kushner ay ka leeyihiin wadanka Sacuudiga iyo ganacsiyo khaas ay doonayaan inay la sameeyaan oo tanaasulaad loo sameeyo iyaga ama sadbursiyo ay keenayso in iyaguna wax fara badan u fududeeyaan boqortooyada wadankaasi Saudi Arabia iyo waxyaabaha ay si kaleeto ku heleen haddii aanay jirin danahaasi shakhsiyadeed Kongareeska ayaa waxa uu ku hanjabayaa in uu gebi ahaanba u codeyn doono in la mamnuuco in laga iibiyo ama laga qayb qaato dalka Saudi Arabia inay dhistaan warshad nuclear daawadayaal dhanka kalena safiirka wadanka Suuriya u fadhiya qaramada midoobay Bashar al-Jaafari ayaa waxa uu u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay talo uu soo jeedinayo madaxweyne Donald Trump taladaas oo ah in madaxweyne Trump uu siiyo gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka wadanka Israa'iil maadaama
aanu xaq u lahayn inuu siiyo buuraleyda Golan Heights ee dalka Suuriya laga haysto dalka Israa'iil. Al-Jafari ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump aanu gacanta ku hayn go'aankeedana lahayn buuraleyda Golan Heights balse uu xukumo gobolka North Carolina, isaga oo durayay isla marhaantaana hadalka ula jeeday in wakiilka laga soo doorto gobolkaasi North Carolina ee Lindsey Graham uu yahay nin ka soo jeeda gobolkaasi, uuna yahay ninka ka dambeeyay in buuraleyda Golan Heights loo saxeexo waddanka Israa'iil, maadaama uu dhowaan booqasho ku tagay uuna usoo ballan qaaday ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil in buurahaas ay yihiin Israa'iil isla marhaantaana la siiyo waddanka Israa'iil oo laga faramaroojiyo waddanka Suuriya oo horey looga haystay caalamka oo dhamina uu aqoonsan yahay buuro si xoog ah Israa'iil kaga haysato waddankaasi Suuriya. warka kale xiisaha badan ayaanu idiin haynaa waxaa ka mid ah daawadayaal Soomaalida ayaa waxay ku mahmahdaa booraan hadima qodin hadda qodidna ha dheerayn ku dhici doontaana moogide. ninka tirsanaan jiray sirdoonka waddanka Faransiiska ee loo yaqaano DGSE ayaa waxa meydkiisa laga helay buuraleyda waddanka Faransiiska ee loo yaqaano Albiska. ninkaasi ayaa waxa uu isku dayay in uu hadda ku hordilo madaxweynaha dalka Congo Brazzaville, ninkaasoo lagu magacaabi jiray Daniel Forrester ayaa waxa meydkiisa laga helay meel gawaarida la dhigto oo ku taala qaybta fog ee buuraleyda Alpine-ka loo yaqaano oo u dhow magaalada loo yaqaano Balaizan. ninkaas oo 57 jir ahaa ayaa 5 jeer la toogtay ama 5 xabadood lagu dhuftay madaxa iyo shafka ayaana lagala dhacay xabadaha. dambiilayaasha waddanka Faransiiska ayaa waxa ay sheegeen in ay muujinayso in ninkan si ula kac dil la soo qorsheeyay loogu geystay. ninkan la dilay ayaa waxa ku socday baaritaan ah in uu isku dayay hadda ka hor in uu dilo nin generaal ka ahaan jiray ciidamada waddanka Congo Brazzaville oo ka soo baxsaday oo mucaarad ahaa kuna noolaa waddanka Faransiiska. waxaa la aaminsan yahay ninkan hore uga tirsanaa sirdoonka waddankaasi Faransiiska in ay soo direen hoggaanka waddankaasi Congo Brazzaville si uu soo kharajiyo ninkaasi lidiga ku ahaa ama mucaaradka ku ahaa madaxweynaha waddankaasi Congo Brazzaville. daawadayaal sheekada kale ee aadka u xiisaha badan maanta ayaa waxa ay tahay in niman tuuga ah ay si la yaab loo dhaceen dad maalqabeena ah. niman isu soo ekeysay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Faransiiska Jean-Yves Le Drian ayaa waxa ay ka dhiseen xafiis aad ugu eg xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Faransiiska. waxay ka dhiseen gudaha waddanka Israa'iil. nimankaasi ayaa kuraasta iyo miisaska yaala xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Faransiiska kuraas aad ugu eg iyo miisas waxa ay ka dhiseen halkaasi, waxaanay dhigeen qalabkaasi. xitaa darbiga xafiiskaas ayaa waxa la suray sawirka madaxweynaha waddankaasi Faransiiska Macron. nimankaasi ayaa waxa ay dadka kula xiriirayeen emailo, Skype iyo koolal caadi ah oo internetka ay ka sameeyeen. nimankaas ayaa nin kamid ah waxa aad loogu soo ekeysiyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Faransiiska, waxaana uu ku hadlayay afka Faransiiska. kaas ayaa waxa uu la xiriirayay dad madax ah oo shirkado madax ka ah iyo dad maalqabeena, isagoo u ballan qaadayay in ay siin doonaan qandaraasyo isla mar ahaantaana ay heli doonaan cashuur dhaaf iyo wax la mid ah. nimankaasi ayaa waxa ay weydiisanayeen niman muujinaya iyaguna inay gacan yarayaal yihiin ayaa waxa ay weydiinayeen dadkaasi xiriir dambe oo ay la sameynayeen in ay soo hormariyaan lacag noocaas ah oo loo baahan yahay in lagaga qayb qaato doorashooyin iyo wax la mid ah. lacagahaasi oo ay ka dhigayeen inay yihiin kuwa loogu fududeynayo qandaraasyo ama dana kale oo ay leeyihiin. booliska waddanka Israa'iil ayaa waxa uu gacanta ku dhigay 3 nin iyada oo midna la doonayo oo uu baxsad yahay. dadkaasi si loogu qanciyo in xafiiskaasi uu yahay xafiiskii wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ama xafiiskii wasiirka ayaa waxa ay meel walba kaga xardeen waxa kaga xardhan xafiiska wasiirka ee ku yaala magaalada Paris. wax aad cajiib u ah in laba dhul oo isu jira kumanaan mayl ama boqolaal mayl bado ay u dhaxeeyaan in laga dhiso koobiga xafiiskiisii isla mar ahaantaana dadka lagu furto. nimankaas ayaa waxay dhaceen lacag gaaraysa 8 milyan oo euro oo ay dadka qaadeen
ama 10 milyan oo dollar iyadoo markii dambe markii laga warhelay haweeney ay la kulmi lahaayeen ay soo raaceen ciidamada dharcadda ee booliisku ayna kala qayb galeen shir ay la lahayd nimankaasi sheeganaya wasiirka arrimaha dibadda iyo nimanka kale dabadeedna nimankii iyaga ahaa la raadiyay lana qabtay 3 kamid ah midna uu yahay baxsad. daawadayaal wararka kale ee xiisaha badan maanta waxaa ka mid ah wakaaladda NASA ee u qaabilsan samawaadka ama irbixiyeennimada waddanka Mareykanka iyo wakaaladda kale ee iyadana loo yaqaano ESA ee ay leeyihiin dalalka Yurub ee iyaduna hawada u qaabilsan ama samawaadka u qaabilsan wadamada reer Yurub ayaa waxa ay bixinayaan lacag gaaraysa 18,500 oo dollar qofkii sariir ku jiifaya 60 maalmood ama muddo 2 bilood arrinkan oo ah cilmi baaris la doonayo in lagu ogaado sababta ay muruqyada iyo seedaha dadka irbixiyeennada ee raaca dayax gacmeedyada ay u ururaan ama ay dhibaato xoog leh uga kulmaan marka ay dhex maraan cufis jiidadka ama soo jiidashada dhulka uu sameeyo ama gravitationka uu sameeyo oo ay ka baxaan hawadan atmosphere-kan caadiga ah ayaa waxa la doonayaa in wax laga qabto sida darteedna la doonayaa in cilmi baaris lagu sameeyo. waxaa la xayeysiiyey in la bixin doono 18,500 oo qofkii doonaya aan idhaahdo halkaas 18,500 oo dollar qofkii doonaya inuu ka qayb qaato qofkaas oo la doonayo inuu jiifo sariir muddo 60 maalmood ama 2 bilood